kuna waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada wararkeena ugu doorona waxaa kamid ah xiisad dagaal oo ka taagan duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maamulka Somaliland oo markale ku dhawaaqay go'aankii ugu adkaa abid soona dhoobay ciidamadii ugu badnaa duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 24 saac ugu dambeeyay ciidamadii ugu badnaa oo ka yimid dhinaca magaalooyinka waaweyn ee Somaliland ayaana soo gaaray saldhigga weyn ee Gooja Cadde oo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Somaliland xilli maalmihii ugu dambeysay dagaaladii halkaas ka dhacay ee u dhaxeeyay ciidamada deegaanka iyo ciidamada maamulka Somaliland jab weyn loogu geystay ciidamada maamulka Somaliland iyo saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada maamulka Somaliland oo lagu weeraray gobolka Cayn iyo furimo cusub oo ciidamada deegaanku ay ka fureen gobolkaasi xilli maamulka Somaliland ay u taglaayeen dagaalka ka socda duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Somaliland Cabdirasaaq Khaliif oo ka baxay magaalada Garowe caasimada maamulka Puntland kuna wajahan magaalada Addis Ababa caasimada dalka Ethiopia hadaba muxuu yahay safarka ama ujeedka safarkiisa gudoomiyaha warkeena ayaana ku faahfaahin doona dhinaca kale ciidamo cusub oo la shaaciyay inay la wareegi doonaan amniga magaalada Muqdisho xilli maalmihii ugu dambeeyayba amniga magaalada Muqdisho uu sii xumaanayay isla markaana ay ku soo badanayeen weerarada ururka al-shabaab iyo waliba weerarada ciyaal weeraradu ay ka geysanayaan gudaha magaalada dhanka kale waxaynu eegi doonaa guulaha ay gaareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba dagaalka wajiga labaad ee dawladda federaalku ay cilaamisay ka dhanka ururka al-shabaab iyo guulaha ay ka gaareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanada ay qabsadeen maalmihii ugu dambeysay iyo waliba arrimo la yaab leh oo lagu arkay degmada Galcad ee gobolka Galguduud qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahinaya daawadayaal warkeena kaga bogan doontaan waxaana isturay kula sugan saaxiibkay wacane oo barnaamijka qaybiga la noqon doona isla markaana soo indheeyay xaaladii ugu dambeeyay ee Soomaaliya waxaana soo dhawow magaalada Laascaanood maalmihii ugu dambeeyay waxaa socday dagaal xoogan iyo waliba dhaqaaq xoogan oo dagaal oo ka taagan duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maamulka Somaliland waxay ku soo celcelinayaan hanjabaado iyo waliba weeraro ay qaadi doonaan iyadoo waliba mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Somaliland qaarkood ay ka biyadideen habka xukuumadda madaxweyne Muuse Bixi ay u wajahayso dagaalka labaad ee ama lagu qaadayo ama wajiga labaad ee dagaalka ee lagu qaadayo duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool bal maxaa ugu dambeeyay aad iyo aad baad u mahadsantahay Santiago shalayto ilaa iyo maanta dagaal markaasi weyn ma dhicin magaalada Laascaanoodna wali wax isku horfadhiyo ciidamada dadka deegaanka iyo waliba kuwa maamulka Somaliland walow shalayto ay maamulka Somaliland madaafiic trabeela ay markaasi ku garaaceen bartamaha iyo waliba daafaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo waliba madaafiicdaasi qaybo kamid ah ay haleeshay Hotel Xamdi oo ahayd goobtii laga soo abaabulay weerarada ka dhanka magaalada Laascaanood ayna ku sugnaayeen saraakiil sare iyo waliba mas'uuliyiin markaasi ka tirsan ciidamada maamulka Somaliland oo tan iyo intii dagaalka uusan dhicin oo dibadbaxyada xilliga ay socdeen halkaas ay ku sugnaayeen walow labadii bilood ee la soo dhaafayba ay ciidamada dadka deegaanka iyo waliba dadka shacabka ay halkaas ay gacanta ku hayeen haddana shalayto ayay madaafiic halkaas ku garaaceen si kastaba magaalada Laascaanood waxa ka taagan xaalad kacsanaana oo dagaal Somaliland waxay wadaan hanjabaadihii isdaba joogga ah markaasi ay rabeen in ay markaasi weeraro soo qaadayaan iyo waliba sidoo kale in ay gacan ku haynta magaalada qabsan doonaan walow arintaasi iyo waliba rabitaankooda ay tahay oo dadka deegaanku ay haatan difaacada ku jiraan Somaliland dhowrkii bari la soo dhaafay waxay magaalada Laascaanood duleedkeeda ku soo daabulisay ciidamo fara badan oo la garanayn haybtooda iyo waliba hub markaasi ay ugu talgashay in 6 bari oo dagaal oo haatan ay diyaarisay isla markaan ay sheegtay istiraatiijiyada qaabka dagaalkaasi u dhacayo ay ku qaadi doonto magaalada Laascaanood hanjabaadaha marka laga tago ma jirto wax maanta dagaala oo ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool walow xaaladu ay tahay mid kacsan lagana cabsi qabo in xilli kasta uu dagaal ka dhici karo magaalada Laascaanood haddana dadka deegaanku waxay sheegayaan in xaaladu ay adag tahay difaaciyadan ay xidheen ciidamadii ugu badnaa oo markaasi gurmada oo ku wajahan magaalada Laascaanood ayaa iyaguna soo gaaraya dhanka ciidamada dadka deegaanka gurmadkan ayaana ka kala imaanaya dhamaanba beelaha iyo waliba yani dadka dega gobolada SSC oo ayagu haatan isku garabsanaya sidii ay iskaga xoreyn lahaayeen cadawga baaxadda weyn ee markaasi 12 sano ka arriminayay guud ahaanba gobolada SSC si kastaba xaaladdu Santiago ma aha mid caga badan ku taagan magaaladana waxa laga dareemayaa markaasi deganaansho rajadeedu ay markaasi aad u yartahay oo laga cabsi qabo inuu xilli kasta madaafiicdii iyo waliba dagaaladii faraha badnaa ee lagu gubtay ay markaasi mar labaad oo halkaasi ka dhaco waagag dhinaca maamulka Somaliland waxaa la sheegay 24 saac ugu dambeeyay ciidamadii ugu badnaa inay soo gaareen saldhigga weyn ee Gooja Cadde dhanka kale hanjabaado isdaba jooga ayay 24 saac ugu dambeeyay ama maalmihii ugu dambeeyayba yay wadeen oo ay sheegayaan in ay talaabo qaadi doonaan
in dadkan isku soo bahaystay in ay amniga khalkhal geliyaan ee kusoo duulay deegaanada somalilan ay tallaabo military ka qaadi doonaan in qorshahooda militariga ay wax ka bedeleen in weliba magaalada ay maalmo kooban ku qabsan doonaan bal hanjabaadahan faraha badan ee maamulka somalilan kasoo baxaya iyo weeraradan ay sheegeen inay qaadi doonaan maxaa sidee kula muuqataa maxayse ka bedeli kartaa dagaalkan sii daba dheeraada kasoo magaalada laascaanood dabcan hanjabaaduhu waa kuwii labadii bilood ee lasoo dhaafayba ay dirayeen maamulka somalilan hanjabaaduhu ma yarayn meelo badan ayay taabanayeen inay puntland dagaalka qayb ka tahay ayna dagaal ku qaadi doonaan hanjabaadaha ayay qayb ka ahayd markii laga tago in hanjabaadun ay socoto ma jirto wax tabara oo iska bedeshay ciidamada maamulka somalilan labadii bilood ee dagaalku ka socday magaalada laascaanood jabkii ugu weynaa abid ayaa la gaarsiiyey ciidamada maamulka somalilan haatan dagaalku wuxuu galay 2 bilood iyo weliba maalmo ilaa iyo xilligana somalilan wax guula oo la taaban karo oo ay ka gaadhay dagaalka ka socda magaalada laascaanood ma jiro سالونيبا سنتاغو دغالكان soo bilowday 6 February sanada 2023 Somaliland waxay kala kulantay jabkii ugu weynaa abid iyo waliba inay weeday saraakiishii ciidamadeeda hogaaminaysay oo ilaa xilligan jaaniya cirib meel ay dhigeen aan la haynin dadka ku dhaqan gobolada Somaliland haatan ay ka ramiso waxay safaf dheer ugu jiraan markaasi xarumaha caafimaadka iyo waliba kuwa dawladda oo markaasi ay ka codsanayaan dhalinyaradoodii in lagu sheego geeriya nolol midka ay ku sugan yihiin ciidamo fara badan ayaa ilaa xilligan markaasi la laayahay goob ay markaasi ku sugan yihiin waxa la arkayaa goobihii lagu dagaalamay gaar ahaan goobaha markaasi Tuga Maraaga oo markaasi kaymo aad u waaweyn leh meydad markaasi halkaasi ku nafaxay oo dadkii laba malaynayo ama ay yihiin ba ciidamada maamulka Somaliland waxaana moodaa in jabkii ugu weynaa abid ay soo gaaray ciidamada maamulka marka hanjabaadan waa mid markaasi meelwaa oo markaasi lagu qancinayo shacabka ku dhaqan gobolada kale ee maamulka Somaliland waaga dadka deegaanka waxa la xaqiijiyay in ay goobo dagaal oo cusub ay ka fureen gobolada kale ee SSC kamid ah sida gobolka Cayn oo kale saraakiil sare oo ciidamada maamulka Somaliland ayaan halkaas lagu weeraray la sheegay khasaaro dhimasho iyo dhaawac bay isku jirayaan ka dhashay dagaalkaasi lagu qaaday ciidamada maamulka Somaliland bal sidee kula muuqdaa furimahan cusub ee hadda la furay maadaama maamulka Somaliland ay horay ugu taglaayeen dagaalkii ka socday duleedka magaalada Laascaanood hortantaago way adkaan doontaa in Somaliland ay markaasi awood u hesho furin kale oo dagaal oo ka furanta gobolada SSC iyadoo waliba u taaglayd furintan dagaal ee ka socota magaalada Laascaanood oo jab xooggan lagu gaarsiiyay ciidamada maamulka Somaliland xilligan aan joogno Somaliland ma hayso ciidamo kala qaybsamo oo goobo kala duwan ka kala dagaalamo Somaliland oo taageero ka helaysa wadamada dariska sida Djibouti ayaa gabi ahaanba u taagla in ay la dagaalanto dadka deegaanka hadii furin kale oo dagaal oo cusub ay furantana taasi micnaheedu waxay tahay Somaliland way jabtay waxayna u baahan tahay gurmad kale oo dheeriya oo ka baxsan dawladda Djibouti si kastaba ha noqotee dagaalka ka socda magaalada Laascaanood oo wajiyo badan soo maray ayaa u muuqda in ay xaaladdu si adkaanayso iyadoo dhinacyadu ay helayaan gurmadyo markaasi ciidan oo maalin walba soo galaya deegaanada markaasi ay ku kala sugan yihiin ciidamada maamulka Somaliland ayaana marka ka dambaysa lagu soo dadgureynaya duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool taasi oo madaxda ugu sareysa maamulka Somaliland iyo waliba saraakiisha sarsare hogaaminaysa dagaalka ay sheegeen in ay wax ka bedel ku sameyn doonaan hab dhaqankii hore iyo waliba habu socodkii hore ee military ee dagaalka ka socday magaalada Laascaanood isla markaana wajiga cusub ee dagaalka uu noqon doono mid maamulka Somaliland ay ka guuleystaan kooxaha huwanta iskugu jira ururka al-shabaab ciidamada maamulka Puntland dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba kooxo kale oo isa soo baaysto qabiilaysan sida ay hadalka u dhigeen dhanka kale ciidamo cusub ayaa la xaqiijiyay in ay amniga magaalada Muqdisho la wareegi doonaan iyadoo bilihii ugu dambeysay magaalada Muqdisho ay la dhacaysay abni xumo aad u baahsan oo markaasi ay geysanayeen ururka al-shabaab iyo waliba ciyaal weerada oo dilal qorshaysan ka geysanaya gudaha magaalada Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaana la sheegay in uu diyaariyay ciidamo aad u tiro badan oo markaasi cusub kuwaasi oo ku qalabaysan gaadiidka dagaal iyo waliba hubka noocyadiisa kala duwan isla markaana la wareegi doono guud ahaanba amniga magaalada Muqdisho waxaana mar labaad su'aal ka weydiiyay saaxiibka waxaana sida uu u arko ciidamadaasi iyo waliba waxa ay yihiin ciidamada cusub ee la shaaciyay in ay amniga magaalada Muqdisho la wareegi doonaan
santago horta ciidamadan waa ciidamo dhowaan tababar loogu soo xiray gudaha wadanka Uganda waxaana laga soo celiyay ama ictiraadooda lagu sheegay ilaa inay ka badan yihiin 5,000 oo askari ciidamadan waxaa si gaar ah markaasi mushaarkooda iyo waliba dhaqaalahooda iyo hubkoodaba markaasi bixinaya dawladda Imaaraadka Carabta oo heshiis dhowaan ay wada saxiixdeen ayaga iyo waliba dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku heshiiyeen in ay bixin doonaan ciidamo gaaraya 20,000 oo askari mushaarkooda kuwaasi oo qaybo yani ka qayb qaadan doona dib u xoreynta deegaanada urka shabaab ay haystaan iyo waliba sidoo kale goobaha ay dowladdu ku shaqeyso ciidamadan gabi ahaanba waxaa la sheegay in ay si hoose uga amar qaadan doonaan taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka NISA Mahad Salaad lama sheegin in taliye cusub loo magacaabi doono laakiin si ku meel gaar ah waxay amar uga qaadan doonaan taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka NISA waxayna sugi doonaan amniga magaalada Muqdisho ee gacanta ka baxay ciidamadan looma tababarin qaab boolis waxaa loo tababaray qaab military marka arinta dadka ay su'aasha iska weydiinayaan waxay tahay militariga hore ee lagu soo tababaray Eritrea ayay magaalada u caalaadahay oo maalin walba dhac iyo waliba dil ka geysanaya magaalada Muqdisho 5,000 oo kaleeto oo carcartooda qaba hadii la keenay magaalada oo u tababarnayn qaab boolis qaab sirdoon qaab u tababaran gareeyay military u tababaran sideebay amniga wax uga qaban doonaan marka arintan waa arin markaasi ay ganacsatada dadka markaasi ka aragtay dowladda federaalka Soomaaliya dhamaantood bay u arkaan arin kaleeto oo ka sii dari karta xaaladii cakarneeda amni darrada ay awalba ka taagneed magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya tan iyo intii isbedelku u dhacay waa markii afraad oo ciidamada la kala bedelo lagu sheego in ciidamo cusub ay la wareegayaan horey waxaan u ogeyn in ciidamada booliska ay amniga hayeen waa kii lagu wareejiyay ciidamadii Duufaan waa kii ay wax ka qaban waayeen haddana waa kii lagu wareejiyay ciidamada sirdoonka waa kii madaxtooyada la galay oo ugu dambeyn waa kii booliska haddana dib lagu celiyay gacantooda hadda waa markii afraad oo ciidamo cusub la sheegay in lagu wareejin doono amniga magaalada Muqdisho maxay tahay sababta loo hanan laayahay amniga caasimadda wadanka horta santago sidii uu hore u sheegay Cali Yara Cali oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir wuxuu sheegay in amnigan hadii lagu wareejin lahaa gobolka Banaadir oo ayaga loo deyn lahaa oo gacmaha kale ay ka bixi lahaayeen magaaladu way deg lahayd waxay noqon lahayd magaalo hal meel looga arrimiyo magaaladan waxaa ka arriminayo militariga waxaa ka arriminayo sirdoonki waxaa ka arriminayo taliyaashii Duufaan oo ayaga la garanayay meel ay ka amar qaataan gaar ahaan taliyaha hay'adda sirdoonka ee qaranka NISA ayaa la sheegay AMISOM baa iyagana qayb ka oo amniga qayb ka sugayso booliska Soomaaliyeed ee federaalka ayaa joog kuwii gobolka ayaa joog marka waa magaalo gashay iyadu gacanta ka baxdayba waa arkaysaa xaafadaha aan la geli karin oo haystaan militariga xaafadaha aan la geli karin oo haystaan booliska kuwa kale oo haystaan Duufaan iyo Mahad Salaad kuwa kale oo sirdoonka yani waa magaalo gacanta ka baxday oo isku turtur u galay amnigeedii marka hadii ciidamo cusub la keenaa tiriya balaaye cusub hadii la geeyo xataa koleeto amnigeedu ma hagaagayo ilaa iyo mas'uuliyadda guud ay qaadanayaan hal cid oo kelita lagana dambaynayo hadii aad loo deyn lahaa taliyaha hay'adda sirdoonka ama loo deyn lahaa booliska bas loo deyn lahaa magaalada oo dhina maqlaysan gobolka Banaadir oo amnigiina iyo taliyihiina iyo wixiina inagu amniga suga xarumaha dawladana waxa si gaar ah u ilaalinayo ciidamo ka amar qaata madaxtooyada ama barka yani saan lagu wadi lahaa waxa laga yaabi lahaa in amnigu wax iska bedel lahaa laakiin ciidamo aan isaqaanin marka waxa isleedahay faraha badan fara badan frustration badan baa ku dhex jiro faragelin fara badan baa ku jirto nin walbana waxa weeye for example hadda taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka NISA kuwa ka amar qaato checkpoint lagu baari karo ama lagu istaajin karo booliska kuwa ka amar qaato ayagana lama joojin karo militariga ku soo baxaan way isfara saarayaan marka taa waxay ku tusaysaa inaysan jirin mas'uuliyad gaar ah cid ay ka saaran tahay amniga magaalada Muqdisho hadii la helana waxa suurtagal ah in amnigu uu hagaago وهاك وجهي لبعض الدجال كسر ذلك الصوماليا كذا كأوروبا للشباب حاجة مريا يسوي وجهه مريا ماشي وناكسند أبد أيضا ولي بشرة طلع قبت ديجانا هرلا عصب أو أوروبا إجعنت كويين ديجانا ذا السنة وحكم ذا ديجانا مركزي هو سي ماذا قبل كالجدود كواسي ولا جساري استراكيل سري ولي بعيد ما فرب بدن وكتر سن أوروبا بحسير شاب ماله فرب بدن أيون حاتا قبل وضي وجه لبعض قاعدون كذا كأوروبا بحسير شباب ومدحوينه دوان وقدر واقع مجال أذن جبال
oo markaasi ahayd goob ay ururka al-shabaab uga arriminayeen guud ahaanba gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. si kastaba ha noqotee wejiga labaad ee dagaalka dalka Soomaaliya maalmihii ugu dambeysay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay gacanta ku dhigeen deegaano muhiim ah oo ay kamid tahay degmada Galcad oo ka tirsan gobolka Galgaduud halkaasi oo ay ka saareen xarakada al-shabaab. degmadani hore waxa uu qabsaday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed wejigii koobaad ee dagaalka balse ciidamada dawladda ayaa arrimo markaasi la xiriira xeelad military uga baxay kadibna waxa ku soo laabtay xarakada al-shabaab maalintii shalay ahayd oo markaasi taariikhdu ay ku beegnayd 7 bisha afraad 2023 ayayna ciidamadu dib ugu qabsadeen magaaladaasi iyadoo weliba ay soo baxayaan warar la xidhiidha in ururka al-shabaab ay maalmo ka hor halkaasi dhexdooda isku farasaareen taasi oo khilaaf xoogan ka dhex dhalisay ururka al-shabaab waxaana la sheegay in ururka al-shabaab isku khilaafeen in xubno horay ugu dhaawacmay dagaaladii ka socday degmada Galcad iyo weliba gobolka Galgaduud qaar ka mid ah madaxda ugu sareysa ururka al-shabaab ay soo jeediyeen in la dhaawac tiro si aysan xarakada markaasi uga mashquulin dagaalka ay kula jirto ciidamada xoogga dalka Soomaaliya halkaasina waxaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen saddex ka tirsan horjoogayaashii ugu sareeyay ururka al-shabaab iyo 10 kalena ay ku dhaawacmeen daawadayaal wixii ka soo kordho wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa amaana Allah